jubbaland axmed madoobe khiyaamo laguma gaadho arrin la khiyaameeyo axmed madoobe horey baan idiin sheegay waa munaafiq khiyaamada unbuuna bartee wax kale ma baranin sixir iyo jin iyo balaayana waa la shaqaystaa oo wax walba waxa weeye u kala tuuraya war soo dhawaada wadayaal waxaan rabaa inaan muuqaalkan ku dul istaago xogihii ugu dambeeyey isbeddelka lagu sameeyey golaha wasiirada iyo wasiirada qaarkood oo siro badan banaanka keenay fadeexad weyna dul joojiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale sababaha keenay in isku bedel lagu sameeyo golaha wasiirada oo waliba si degdeg ah xilka qaadis iyo isku bedelba loogu sameeyo waxaan dul istaagi doonaa lacago malaayiin ah oo la dhacay laguna eedeynayo ama isku eedeynayaan qaar ka mid ah wasiiradaas iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaabka lacagtaasi ee loo dhacay iyo sidoo kale waxyaabaha ay isku hayaan iyo sabab lacagahaasi cidda lagu eedeynayo ee meesha ku shubatay ayaan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale dul istaagi doonaa khilaafka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ama gobolka Hiiraan khiyaamada la khiyaameeyay shacabka ku nool gobolka Hiiraan iyo maroosiga awood ahaan lagu maroorsaday wixii horay ay ku heshiiyeen shacabka gobolka Hiiraan ama siyaasiyiinta gobolka Hiiraan iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ayadana aan waxba ka hirgelin waxaan dhanka kale eegi doonaa xaaladda ka taagan gobolka Gado oo ayadana meeshii ugu xumayd maraysa odayaasha degmada Garbaharey oo war ka soo saaray qorshayaasha iyo mowqifka dowladda federaalka iyo howlaha ay ka wado gobolka Gado iyo sidoo kale Axmed Madoobe oo ayagana ay dhaleecayn dusha uga tuureen khiyaamooyinka Axmed Madoobe uu la damacsan yahay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee gobolka Gado la keenayo sidii tiiraas Kamboni ka dhacday oo kale iyo tu ka daran ayaa iyadana laga saadaalinaya waan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka la saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay maanta horta waxaa dhacay isku shaandhayn xilka qaadis iyo xil magacaabis golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwa kala saameyn ma lehe midba aad bulshada Soomaaliyeed ay u hadalhaysaa waa wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirasaaq oo xilkii laga qaaday lama bedelin isagu xilkii baa laga qaaday laba arrimood ayay Cabdirasaaq iyo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud isku hayaan baa la yiri xogo kalena way soo baxaysaayo waxaa bixiyay taageerayaasha xisbiga UPD Xasan Sheekh Maxamuud taageerayaashiisa ayaa bixiyo waa xogo kale oo waxa durba waxa way fadeexad loo galiyay wasiirka Cabdirasaaq waxa leeyay lacag malaayiin ah oo dalku u baahnaa ayuu wasiir Cabdirasaaq meel ku shubtay baa leeyay lacag malaayiin ayuu wasiir Cabdirasaaq meel ku shubtay xasanna sidaasay isku qabteen baa leeyay wasiir Cabdirasaaqna wuxuu yiri madaxweynaha waxaan isku qabanay arinta la xiriirida Hiiraan ama Hirshabeelle heshiis hore jiray oo ah in caasimada iyo madaxweynaha Abgaal iyo Xawaadle ay kala qaataan oo siday u kala qaadanayaan haddii caasimadii laga dhigay Jawhar madaxweynaha waa in la siiyo beledweyne oo Xawaadle la siiyo ee Abgaal caasimadii iyo madaxweynihii iskuma darsanaysaan gacan bidixeeyay baan ahaydo anigu dhowr sano ka hor baan ka intaasoo jeer baan ka hadlay ilaa 3 sano ka hadlayo la war nimankan Xawaadle wala gacan bidixeeyaan lahaa Cabdirasaaq soo intaa buu sheegay laakiin xaqii UPD Xasan taageerayaashiisi ayaa waxa laga soo tuuray gamtaal oo waxa la yiri wasiir Cabdirasaaq iyo Xasan waxay isku qabteen in dhaqaale fara badan oo la rabay in qaranka u soo xaroodo ayuu Xasan ninkale Cabdirasaaq meel ku shubtay waayay lacagaasi waxa lagu macneeyay inay yihiin heshiisyadii shidaal qodista lacagii hordhac ahaayee xaquuqalinka lahaayee la siiyay in waxa la leeyahay wasiir Cabdirasaaq uu meel gaar ah ku shubtay haddii lacagta la rabay inay si fiican meel sax ah ku dhacdo marka horeba wasiir Cabdirasaaq gacantiisa ma soo marteen shuqul kuma lahayn isagoo wasiir batrool buu ahaa wasiir batrool ama wasiirna shuqul kuma leh lacag qabasho dawladdu waxay leedahay akoon maaliyadeed bay leedahay oo haday arinta run tahay oo sax ay tahay
wasiir cabdirasaaq gacantiisa ma soo gashay marka hore wasiirka maaliyadda xafiiska maaliyadda ee akoonka maaliyadda lagu hagaajin lahaa haddii xasan iyo isaga ay ku heshiiyeen wasiir cabdirasaaq oo lacagta inoo qaad oo hadhow aan qaybsanana dee laba tuug bay ahaayeen marka tuug dhacay weeye ceebna kuma laho weligeed bay laba tuug hadday wax ku heshiiyaan ay isdhici jireen marka wasiir cabdirasaaq eed gaaro uu yeelanayo ma jirto laba tuugoo isdhacay u weeye taas baana loo badinayaa oo lacagtan waxaa loo badinayaa in xasan uu yidhi wasiir cabdirasaaq uu lacagta inoo qaad oo labadooda meel hebla waxa weye inoogu kala shub adna intaa qaad adna intaa qaado wasiir cabdirasaaqna maadaama madaxweynuhu uu waxboobayo malaayiin dollar uu qaadanayo inuu wixiisii intuu qaatay uu keligii qaatay oo meel ku shubtay oo uu yidhi soo xilku lagaa qaadi maayo wax ka badan baa laguu samayn dee lacagtaas ninkan gacantaada ha marinin kolloba berito xilka lagaa tuuriye waa macquul marka arrimahan marka ay soo bandhigeen waxay fadeexad ku tahay xasan sheekh maxamuud labadaba ceeb bay ku tahay cabdirasaaq iyo xasan laba nin oo saaxiibbay ahaayeen laba nin oo lagu waxa weeye kusoo heshiiyey wax bay ahaayeen wixii ay kusoo heshiiyeen wax ka hirgalay ma jiro xasan iyo cabdirasaaq waxay ku heshiiyeen war labadaa maamul inagu aan kale labadaa qabiil inagu kala hogaaminay hirshabeelle wada dega u badan waxa weye idinku adiguna madaxweynaha qaata annagana waxa weye caasimaddaan qaadano waxba kama hirgelin inuu marka intuu lacag iyo wuxuu xaabo karo uu xabxaabto uu iskaga tago yaa uga fiican sababtoo ah reerkoodii meesha way ku dulman yihiin way ku baahan yihiin waxba kuma haystaan waa la gacan bidxeeyey inuu iskaga tago way u fiican tahay taasi waa midda horta waa wasiir cabdirasaaq oo wasiirka batroolka iyo macdanta ee soomaaliyeed walow isagu uu afkiisa ka qirtay qadiyadda hirshabeelle inuu kursigiisa ku waayey oo xilka qaadistiisu ay sabab u tahay sida isagu uu shaaciyey laakiin arrimaha waa arrin UPD ka soo iyo wax fadeexadeeyay lahaayeenoo wasiirkay ceeb u raadinayeen laakiin madaxweynihii bay dhiiqa dhex fadhiisiiyeen oo ay ku caddeeyeen wixii awal horeba lagu xamanayay ahaa musuq maasuq oo dee isagu horaydiisa iyo gadaashiisaba musuq maasuqa ayna iska muuqato dee dhulkii boobkiisa waxyaabaha la qaadanayo waxa la boobayo waxa la dhacayo waxa la kala goosanayo dhulka danta guud wixii oo dhan oo la iska xaraashayo baddi iyo wixii oo dhan la xaraashanayo bad iyo bariba oo madaxweynuhu dee wixiisaba isagu way bannaankaba iska taalo unbay haddana iyagiina kusii caddeeyeen taasi waa middaa dhinaca kale gobolka gado arrinta ka socota waxaad moodaa inay ka darnaan doonto saadaasha laga bixinayo arrintii raskamboni ceebtii dowladda federaalka ka soo gaadhay haddii dowladdu ay noqoto bilaa qurshe bilaa hadaf bilaa dhiirigelin bilaa ajanda la-aan hadday dowladdu noqoto dee raskamboni oo kale ay kusoo dhammaanaysaa ciidanka qarankana waa la halaagayaa gobolka gado in ciidan dowladdu ay keento oo la xoreeyo weliba jubbada dhexe la aadiyo oo labadan kooxood ee axmed madoobe iyo kooxda khawaarijtaba laga xoreeyo dhulka soomaaliyeed ee jubbaland oo ummadda reer jubbaland isbeddel ay helaan waa arrin fiican dowladdu inay ciidan halkaa keentana kama xumino waa jecel lahay laakiin ciidan qursho la-aana ciidan hadaf la-aana ciidan ajanda la-aana dee waa tii raskamboni bay noqonaysaa ceeb bayna nagu noqonaysaa dowladdeennana ceeb bay ku noqonaysaa dowladdu iyada oon odayaashii dhaqanka xidhxidhanin oon la hadlin waa meesha keliya fiiri gobolka degmada garbahaarey waa meesha keliya ee mas-uuliyiinteedii xataa 100% ay si toosa dowladda u taageereen waxaa la rabay markay sidaa dhacday in dhaqaalaha badan ee bannaanka lagu kala gogoosanayo in odayaasha dhaqanka ee garbahaarey oo kale lagu asqeeyo odayaasha loo wada yeedho la yidhaahdo war maamulkan axmed madoobe maxaad ku qabtaan ayagaaba hadle waxay sheegeen waxba aynan ku qabin maamul annaga mabalihin bay dheheen maamul goboleedna annagu kama tirsanin dowlad federaalla waxba kama helo labadaba midna kama helay dheh waxaa la rabay odayaasha dhaqanka fartaag meeshan uu iska dhacnac leeyahay ee meesha iska fadhiya lama rabine dhaqaalihii loo soo dhiibay hadduu wax loo soo dhiibin inta wax fiican loo dhiibo in odayaasha horta uu kow ka bilaabo odayaasha la dilo la seexiyo la yidhaho war maxaad qaadataan waxba odayaasha soo maaha $1,000 oo biira bisha qaata dowladdiina taageera xadaba maxaad ku qabtaan waxba kuma qabno kow maxaad rabtaan dowlad baan rabnaa buundooyinkana loo dhisaan rabnaa waa laynin dhisaa buundooyinka soo calaamadeeya inta buundooyin u waaweyn dowladdu ay ballan qaado dhaqaalo la siiyo odayaashan baahane aan maamulba weli aragsiyaad barasay u dhacday aan waxba arkin in wax la siiyo la fadhiisiiyaa la rabay dowladdu ay xagga taageero ka keensato odayaasha dhaqanka ay gacanta ku dhegto si qabqablayaasha ay gacanta ku dhegto niman waxa weye qaaqlayaasha ay gacanta ku dhegto
muqayiliinta ay gacanta ku dhigto bahal inay saa dhahdaa la rabay horta wax iska hormariso laakiin dowladdii kii intii loo soo dhiibay baa asagaa meel la seexanaya fartaag odayaashii maanta hadleen waxaa la yidhi war anaga axmed madoobe ma naqaano xasanna ma naqaane nooga baxaa la yidhi gobolka gadow amni darraa naga abuurina baa la yidhi naga abuurina ma doonayno gobolka amni baan ku haysanaaye amniga anadaan ku ciyaarina ilmadaryaalow aan isdayna baa lagu yidhi baladu ceebta intay leegtahay eeg baladu fashilka intuu leegyahay eeg arrinta marka gobolka gadow dowladdu ay ka wado haddii sidii raaskambooni ay doonayso adeer la yeeli maayo ka daayo gobolka gadow ha qasinaan leenahay haddii qorshahoodu ay ka go-an tahayna lacagahan ay xamar ku cunayaan waxa weye malaayiinta dollar ay u kala qadqaadanayaan ha keenaan gobolka gadow oo ciidanka dhalinyarada odayaasha culimowdiinka cid walba haweenka qaybahooda kala duwan ha lagu kardaadiyo shacabka ha kasbadaan ayagaa shacabka wax walba ku filan ayadoon ciidan la keenin ba axmed madoobe la leeyahay ku diidnay ofiya kir fadhi kismayadaada kuma rabnaa la dhihi mooryaan baa tahay baa la dhihi runtaa loo sheegi haddii kaleeto dee waxa weeye adeer meel ho u baahan hadal waxba kama taree dowladdu dhaqdhaqaaqyada ay ka wado gobolka gadow ha ka dayso shacabku dowlad bay u baahan yihiin dheefteeda inay dhadhamiyaan bay rabaan waxqabad dowlad inay helaan bay rabaan gacantu inay kasoo horeysay rabaan boogihii hore ee laga waxa weeye dhibaatadii loo geystay in laga dhayay rabaan ma doonayaan af qallalan iyo qalalaase in la iskugu daro ma doonayaan dooni mahayaan axmed madoobena ma rabaan dowlad federaal haddii aan waxba wadanin oo waxba ka soo horreynin oon dheef lagu qabinna iyadana dooni mahayaan annagaana ku raacsan taasina waa xaaladda gobolka gadow axmed madoobe waa nin khiyaamo badan